الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، وصلى اللهم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. درسي كصاب سنة الأمة الإسلامية بين الآلام والآمال، وأمد مسلمين تاين يودحيسو dhibaatooyin iyo mashaakil haysta iyo rajaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ka qabaan iyo mustaqbal fiican oo ay rajaynayaan. darsiga qaybtiisii koowaad baynu akhrinay. qaybtiisa labaad waxaynu kaga hadlaynaa التاريخ علاج للآلام. taariikhdu inay tahay waxa wax lagu daweeyo ee bogsiisee dhayda dhibaatooyinka dadka ku dhaca, rajana abuurta. ولذلك baa waxaa la yidhahaa man yaqra' التaariikh laa yadkhul اليأس fii qalbi. qofka taariikhda akhriya bay yidhaahdaan ee taariikhda daraaseeya, quustu qalbigiisa ma gasho, ma quusto. waxaan u arkaa adduunka sidii ilaahay baa ku tilmaamay ayaamo isbedbedelaya oo bayna alghaalibi waalmaqluub isubedbedelaya. inteenna badan waa dhibaysaa dhibaatooyinka maanta isha aynu ku arkaynay caalamka ka socda. maalan waxa ghaza ka socda oo ah dad inta meel yar oo kooban lagu ooday wixii hub dunida yaallo dhanna lagu tijaabinayo, wax walbana laga mamnuucay. laydh, biyo, cunno, nolol oo dhan wixii ku saabsiisnaana loo diiday. wax bini aadam lagu gubo dhammaantiina lagu gubayo. waxaynu arkaynay suuriya oo hadda isa soo beddeshay iyo wixii ka dhacay. waxaynu hore u aragnay lebnaan iyo wixii ka dhacay. waxa dad badan isweydiinayaan barme iyo wixii ka dhacay, rohangaha dadkii muslimiinta ahaa ee dumar iyo carruur iyo cid walba la xaaqay. waxaa laga yaabaa in dadka qaar yidhaahdaan waxaan oo carruur la laynayo oo dumar la laynayo oo magaalooyin la gubayo, ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo nasrigiisii xaguu ku maqan yihiin. waxaani wax dunida ku cusub maaha. ilaahay qur-aanka wuxuu inoogaga warramay nin fircoon la yidhahdee maada facala fircawn. ilaahay baa sheegay carruur la gowracayo, dad la baabi'inayo. rabbaa qur-aanka kaga warramaya. qur-aanka rabbaa kaga warramay asxaabu ulukhuduud iyo sidii loo galay, dad nooloo la gubay. walidaalika waxaynu leenahay waxyigu oo aan qur-aan iyo sunnaba sidee bay u boogadhayeen dadka muslimiinta aalaamtooda iyo xanuunadooda, una rajo geliyeen mustaqbalka amal iyo rajo inay leeyihiin. ilaahay isagoo nebi muuse la hadlaya wuxuu tilmaamayaa wadakirhum biayaami illaah ina fii dalika laaayaatin likulli sabaarin shakuur. aayaddu walaqad arsalnaa muusa biaayaatina nukhruj qowmaka min aldulumaati ila annuur wadakirhum biayaami illah. ilaahay wuxuu leeyahy nebi muuseanu u soo dirnay tolkii inuu mugdiyada ka saaro o nuurka u saaro. nebi muusena tolkii waxaa la yidhi wadakirhum ku waani biayaami illaah, ilaahay maalmihiisa ku waani. ayaamullah waa maxay? waa ayaami alhalaaki waa nicma. waa maalmaha iskagedinaya ee maalmo dhibi ay soo gaadhay oo dadkiisa la laynayey oo la gumaysanayey oo la gumaadayey, iyo maalmo cadowgoodii ilaahay halaagay oo iyagu guulaysteen. maalmaha xasuusi baa ilaahay yidhi
noloshuna waa labadaa maalmoodu waa ayaam lishidda walibtilaa bishidda waaldaraa'i waassaraa iyo maalmo laysku itixaamo binicma iyana waa imtixaan kalow ilaahayna wuxuu leeyahy inna fii dalika laaaayaatin likulli sabbaarin shakuur arrinkan waxa ugu sugan baa ilaahay leeyahy aayaad calaamaad ay wax ku qaataan likulli sabbaarin shakuur juskan dambe aayaddu inna fii dalika laaaayaatin likulli sabbaarin shakuur 4 meelood bay qur-aanka kaga soo aroortay 4 meelood 2 meeloodoo ka mid ah qadiya taariikhiya inta alla ka warramay buu ku tilmaamaya inna fii dalika laaayaat waxa waano iyo tusaale iyo calaamado ugu sugan tahay waa qisada nebi muuse iyo qisadii reer saba allahuma baacid bayna asfaarinaada ay lahaayeen 2 meeloodna alaayaat alkowniya baa ilaahay kaga warramaya oo waxaa lagaga warramayaa alam tara ana alfulka tajri fi lbaxri binicmati illahi liyuriyakum min aayaati ina fii dalika laaaayaatin likulli sabbaarin shakuur iyo aayaad kale ku macno dhadhow idan taariikhduna waa aayaadka kowniga ee cirkan iyo abuurkiisa iyo samada iyo badda iyo berriga iyo waxaan jirana waa aayaad labaduba waa wax u baahan in wax lagu qaato yaase wax ku qaata likulli sabbaarin shakuur baa ilaahay yidhi cid kastoo sabir badana ah oo bele markay dhacdo sabirtoo adkaysata nicma markay dhacdana shukri naq badan labadaa sifo cid kastoo leh labadan sifo waa wajhaya aliimaan bay yidhaahdaan waa labada wejiye iimaanku leeyay walidaalik baa ilaahay markuu munaafiqiinta iyo kufaarta iyo kuwaa tilmaamayey inaanay asbaabtaas ku cibro qaadanin qul induruu maada fi الsamaawaati wاlأrض wma tugni اlaayaatu wاnnuduru can qowmin laa yu'minuun baa ilahay yidhi wma tugni alaayaatu wاnnudur aayaadka iyo digniintu maxay ka tarayaan duul aan rumaynin baa ilaahay yidhi subxaanaه wa tacaala idan almu'min huwa sabbaar shakuur kaas baa ah ka aayaadka kani ay anfacaan ilaahay mar hadduu yidhi wadakirhum biayaami اllaah dadka waxaad ku waanisaa nebi muusow ilaahay aayaadkiisa ayaamka ilaahay maalmahaasi iska gedinaya aayadda ku xigta nebi muuse muxuu talkii ku leeyahay waid qaala muusa liqowmihi اdkuruu nicmat allahi calaykum ida jaakum min aali fircawna yasuumuunakum suuءa alcadaab wayudabixuuna abnaa'akum wayastaxyuuna nisaa'akum wafii dalikum balaaء min rabbikum cadiim waa ayaamkii la yidhi ku waani ayuu ku waaninaya sidoo kalena nebiyullaahi moxamed calayhi الsalaatu wassalaam muslimiintii maka joogtay markay dhibtu ku tiro badatay ay adkaysan kari waayeen khabaab ibnularat baa nebiga u yimi oo yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow alaa tastansir lana alaa tadcu lana ilaahay maad guul noo weydiisid ilaahay maad noo baridid nebigu calayhi الsalaatu wassalaam ninkani wuxuu rabaa in ilaahay uu guulu weydiiyey nasri nebigu laakiin qadiya taariikhiya buu u sheegay mushkiladdii uu sheegtay waxa dawo looga dhigay maxay mas'ala taariikhiya saa awgeed buu nebigu wuxuu leeyahy qad kaana man qablakum waxaa jirtay buu nebigu leeyahy dadkii idinka horreeyey mid ka mida inta la soo qaado oo god loo qodo oo dhulka lagu aaso oo mishaar halkaa laga saaro in laba loo kala jeexi jiray waxaasina inaanay diintiisa oo la soo qaado gafeedh bir ah oo dabeetana hilibka iyo lafaha lagu kala diiro waxaasoo dhammina diintooda kamay celin jirin buu nebigu yidhi idan qadiya taariikhiya buu ku dawaynayaa ninka kani xanuunku sheeganayo dhanka kale isla xadiidka qadiyadaa taariikhiga ah buu ku rajo gelinaya markaasuu nebigu wuxuu leeyahy wallaahi layutimanna allahu hada alamr layutimanna allahu hada alamr ilaahay baan ku dhaartee ilaahay wuu dhammaystiri doonaa diinta tan حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون أهلنا مركا قرآن إن بدن با إلهي قصص نوغا ورمي إن بدن با إلهينا لا يقول سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين إلهي سبحانه وتعالى آيات بدن وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك
waxaanu kaaga warramaynaa baa ilaahay yidhi wararkii rusushii hore wax qalbigaaga aanu ku dejinno ku xasilino ayuha alaxiba culammadu waxay yidhaahdaan in thuluth kaba badan malah ayaa qur'aanka ka warramaya ummadihii hore kuwa la halaagay kuwa muslimiina boqorro xadaarado dumay xadaarado jira iyo ghazawaadkii nebigu uu galayba calayhi salaatu wasalaam walidalik baa imaamu shaaficiyi raxmat ullaahi calayh waxa uu ka soo naqlinayaa mu'arikhii jabarti taariikh cajaa'ib alaahaar wuxuu ka soo naqlinayaa imaam shaaficiyi inuu yidhi man calima taariikha zaada caqluhu riwaayaadka qaarkoodna waxay soo naqlinayaan waqalla khata'uhu imaamu shaafici baa wuxuu leeyahay ninka taariikhda daraaseeya caqligiisuna wuu bataa waa weynaadaa gefkiisuna wuu yaraadaa imaamu sakhaawiyi oo min culamaa'i shaaficiya ka mid ah isna wuxuu leeyahay aliclaam bitawbiikh liman dama ahla tawaarikh kitaabkiisa la yidhaahdo man carifa taariikha kaman caasha adahra wajaraba alumuura biasriha ninka taariikhda daraaseeya wuxuu la mid yahay nin wakhtiyadaa noolaa oo isagoo arrimaha tajribeeyey ayuha alaxiba waxaynu leenahay markaa